soo wanaagsan waxaan rabaa halkan inaan kugula wadaago wax kasta oo uga baahan tahay as a trader markaad trader tahay aad trend ku talagelinaysid 1 minute talagare 5 minute talagare ilaahay kuma soo 1 minute aan dhahay 1 hour talagare 4 hour 1 day whatever time frame ka talagare waxaan rabaa inaan kula wadaago si yar oo kooban halkan waxay u diyaarsan stab yar oo si yar oo kooban oo fudud oo two way easy ah inaan kula wadaago trend trader markaad tahay oo trend ku talagelinaysid trendiga suuqa aad raacaysid taas oo ah mid aad u awood badan oo aad u xoogan wax kasta oo u baahan tahay markaas wax kasta oo u baahnayd markaas inaad trendiga ku talagelaysid okay soo dhawaada saaxiibayaal mar kale qof walba oo meeshan ku jira soo dhow follow videoga daawanaya si fiican u fiirso waxaan ku sheegayo xagaaga haddaba waxaan rabaa inaan ka bilaabo suuqa laba dharash ayuu leeyahay waxa aad u fudud markii suuqa la fiiriyo haddana kind of losing aan sameynayno suuqa si u fudud yahay marka laisku fiiriyo totally different waa wax aad u kala duwan boqolkiiba boqol 100% oo dhihi karaa waa wax aad u kala duwan haddaba waxaan rabaa saaxiib inaan kula wadaago ama walaal trendy trader markaad tahay ama trendiga aad raacaysid wax kasta oo u baahnayd halkaan aan ka bilaabayaa saa aragtid suuqa laba jiho leeyahay jihada koowaad waa buy jihada labaad aan kuga soo sell haddii aad labadan jiho mid ku xoogan tahay strong ku tahay middaas boqolkiiba boqol raadi 99 midda raadi fiirso setup-ka ayada ka raadi ayada ka fiirso marka waxaan kula wadaagayaa waxa aad u baahan tahay saddex number keliya inaad fiirsatid ma aha inaad complicated wax ka dhigatid wixii inaad isku adkaysid maaha saddex keliya fiirso midkood muxuu yahay BBR waxa usoo gaabiyey waa perfect break and retest which means level suuqa inuu break gareeyo ka tago ma levelka kusoo noqdo kadib inuu kasi dhaaqo waa perfect si perfect ama lama rabo break pa insaan oo kale inuu sameeyo suuq ama insaan oo kale sameeyo lama rabo just maxaan ku yidhi waa perfect break and retest BBR keywords-ka aan badanaa isticmaalay kamid tahay qofkii arko marka hadda kadib waxa waaye wax ma inaad ku wareeri doonin midda labaad oo u baahan tahay maxay tahay midda labaad oo u baahan tahay waxa waaye making high low ama low high just waxaa laga yaabaa break and retest inuusan noqon suuqa levelkan la jabiyo saan in la sameeyo laga yaaba saan break and retest markaa noqonayso dee ama saan la sameeyo as you see waa making in la sameeyo high low ama low high low in la sameeyo sida halkan kaga muuqato kale ama in la sameeyo low high sidaan kaga muuqato okay hagaag waxaan filayaa intaa qof walba inuu la fahmay midda saddexaad waa tegi doonaa chartiga iyadoo faahfaahsan midda saddexaad waxa waaye respecting the trend line in trend line la respect gareeyo trend line saan u soo yahay in la respect gareeyo oo maxaa dhacay maanta trend line lagu laabto laga soo dhaco lagu laabto waa same as labadii horena waa ku dabaqi kartaayo maybe in halkan inta laga soo dhaaqay trend line inuu meelahan yahay oo break and retest ay noqoto maybe in halkan laga soo dhaaqay oo trend line uu kor yahay oo high low ama low high noqoto okay haddaba hadda intaa ka gudbo marka waxaan filayaa inaad ila fahantay halkan high low haddaan maqashid high low haddaad aragtid waa kan as buy bias markaa u talagelinaysid high low ka fiirinaysa suuqa markasta aduu halkaa kama qaadanaysid suuqa zoonka kama qaadanaysid maxaa ka qaadanaysaa meeshan kaa kama qaadanaysid sababta ugu dhamaaday bullbagga u dhamaaday maxaa socda bullbagga waa imaanaya bullbagga waa inaad sugtaa marka haddii ka halkaa kasii qaatay waa lagu tuuri halkaan suuq imaanaya u dhaaqaya dhawalaas waa laska kii saaray suuqa u dhaaqay waxaananaysa adaa muddo badan isla hadlay okay haddaan halkaan imaado marka low high
nasi diyaariyay laakiin mostly hagaag waxaa aragtaa saddexdiiba halka inay ku dhan yihiin suuqa halkan waa ka tirigelin kartaa waa kan trailer respect way prefect break artist way waa suuqa uu jiray uu kusoo noqday waa laaqa multiple week rejections way MWR multiple week rejections waa meesha ka heshaa badanaa mostly waxaa laga fiiriyaa week rejection badan unless aa ku tirigelinaysa 1 minute asagu one rejection hal rejection haddaa heshid 1 minute tirka qaado ama laba ka dhalo soo doomar haddaa heshid ora ka qaado tirka sugin isagoo waqti badan ma laha oo la sii sugo sida halkan kaga muuqato sida ayadoo sel bias markay tahay halkan waa high highgaas kusutay suuq low samaystay low high kadib movekan adig faa'iidaysanaysa marka waxaa aragta halkan saddexdiiba inay kulunsan yihiin break and retest waa kan halkan waa low high waxaa sidoo kale aragtaa trailer respect inay tahay marka saaxiib waxaa u baahan tahay keliya saddexdan inaad ka fikirtid these three ha isku adkeen complicated ha ka dhigan keliya aan yaryareeyo aan suuqa geeyo suuqa soo dhaaqay bullback bush face ba arkaysa bullback baa la sameeyey bullbackkaas iyada toogay inuu meel brick ah usoo jabiyey oo awal oo low hor lahaa usoo jabiyey lowgaas kadib lagu laabanayo laabashaas maxaa weeye pullback continuation phase-kaas aad uga faa'iidaysanaysaa marka waxaa sugaysaa keliya in la sameeyo lower high ama high low si halkan kaga muuqato kadib week rejections lagu sameeyo as time frame-yada hore 5 minute-ka 30 minute-ka kulli week rejections badanaa ka raadinaysaa ugu yaraan 2 kadib maxaa weeye khasab maaha saddexda in isku mar ku dhacaan marka saddexdan isku mar inay ku dhacaan khasab maaha hal mid oo ka mid haddaa heshid tirarka qaado saddexdooda waa raadinaysaa waxaa laga mar inay isku mar ku dhacaan markaas waa strong hadday isku mar intaa kuu samaysmato strong way kama labalabinayso suuqaas hore ka qaado wixii kale wax keliya oo kugu samayn karaa suuqaas waxa waaye inuu dhaqaaqo double top kugu raadsado ama double bottom kugu raadsado kadib meeshaadii break-even laga saaro kadib week rejection lagu siiyo ama adoon laga saarinba double bottomka ama double topka markuu raadsanayo suuqa kusii dhaaqo kadib aaweyn qurux badan ka heshid halkaa wax keliya kugu samayn karaa markaas okay hagaag aan aadna marka waxaan jeclahay inaan qof walba inuu waxa weye ila fahmay aan aadno marka aan aadno chartiga si aan ku tuso ayadoo si real oo dhacsa waxaas aan ka sheekeynay hagaag let's go 5 minutes until si clear ah u aragno waxaa aragtaa marka halkan waxaa aragtaa in ay ka dhacayso maxay halkaa double top baa ahaa suuqa kusoo kala wareegay move baa dhacay qurux badan kan waxaan adiga sell bias baa lagu jiraa ha raadsan marka buy biaska ha aadin wax kastoo jaa kastoo marka sell lagu jiro wax kastoo buy ku siinay si aqdan loss uga carartid maxaa laga carray losska maximization of profit and minimization of loss baa lagu jiraa meeshaan waxaan ugu samayno intaa marka si aa uga carartid sell bias markuu suuq yahay aragtid inuu sell yahay buy biaska harta waxaan wax yar ku dhaaqaya meelahan kasoo noqonay oo aragta okay trailer respect to aragta kow haltaad markii labaad labo trailer respect ku hormaraya waxaa ku xojinaya break and retestiga saddexdii hal meel baan kaa wada tusayaa waxaan sugayaa trailerka inuu meeshaan kusoo laabto si trailer respectiga aan u helo oo trailerka lagu respect gareeyo khasab maaha markasta in la respect gareeyo ku yiri saddexdii isku mar ma heli kartid waxaa macquul inaad isku mar heshid waxaa macquul inaad isku mar helin isku mar bay dhacayaan halkan isku mar bay ka dhacayaan suuq isku dhaqaan ku tusiyaa strong maraan ku leeyahay waxa waaye saddexdooda isku mar dhacaan suuqu 100% halkan waxaa aragtaa break and retest in ahead suuqu dhaaqay haa laakiin si move qurux badan ma dhaaqin week rejection meeshaan ma lahayn trade qurux badan maahan marka okay waxaan rabaa marka suuqu meeshaan igu soo laabto kadib aan trade halkaa ka raadsado week rejection ka helo trade ka raadsado galo waxaa aragtaa halkan kow maxaa helay trailer respect waa helay kow iyo labo baa haystaa kow iyo labo trailer waa respect garay
marka lagu soo laabto marka respect trailer respect marka sameynayo kow iyo labo ma la tirinayo waxba ha tirin adiga waxa laga yaabaa inuu kuu respect gareeyo waxa laga yaabaa intuu meeshan kasoo dhaaqo inuu halkaa tago which means inuu meelahan double top ka samaysto oo key level trader aa noqotid waxa laga yaabaa inuu meelahan ku laabto marka khasab ma aha inay trendline la respect gareeyaan ku laakiin as a trend trader trend baan ku talagalay marka dhacday saddexdaas shay kaliya u baahanta inaad fiirsid okay haddaan ka socdo suuqa haddaan furo wax yar si aan u aragno halkan waa la break oo aragtaa clear break aragta si u noqoto maxaa waaye clear si cad waa in looga tago halkan kadib waa in halkaa lagu laabtaa kadib usoo saartaa clear warkaasa clear la dhihi karaa other side waa aragtaa trend line waa respect gareey saddexaad oo ahayd in suuqa uu ku sameeyo lower high ama high low tan waa sell bias waa low high ku sameyn karaa kaliya halkan low low ka sameyn low high gaas ka soo qaadan kartaa okay aan suuqa furo marka aan sii daayo break si nadiif ah loo break gareeyo aragtaa maxaan ku yidhi multiple week rejections halkan kow waa aragtaa week nusoo sameysmay halkan maxaa sameysmay weega kooda uu soo dhacay trend line soo taabtay mujada waa la reject gareeyay trend line si nadiif ah marka loo tegi doono hadda wait maxaa aragtaa hadda kow labo saddex week kale momentum shift halkan ka dhacay marka optionka koowaad ah haysto waxa weeye inaad sell stop sii dhigto halkaa 8 bib waxaan ka talagalinayaa ama 7.5 7.5 aan ka dhigo 5 minute baan ku talagalinayaa 7.5 hagaag saaxiib yaal waxaa aragtaa saddexdii shay aan kuu sheegay meesha inay ka dhaceen waxaa kuu muuqda kow waa trend line respect isku mar bay dhacaan marka waxaan ku idhahdaa isku mar dhacaan waa strong waa awood suuqa wuxuu dhaqaaqayaa move aad u qurux badan oo wax badan ka faa'iiday okay trend line respect waa kow break baa la sameeyey clear break waa ujeedaa in la sameeyey retest intee baa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban weeks waa aragtaa kow labo saddex afar waa clear break and retest intaas hore haddii laga soo bilaabo waxay noqonaysaa saan tooska haddii halkaas suuq bilowga waxaa laga soo akhriya meesha kasoo bilowday high low high low 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 high low 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 high ga waa kartaa inuu ku samaysmay halkan maxay noqonaysaa marka low high okay waxaa kaloo ka dhacay maxay saddexda waxaa ka dhacay ku tiyaa clear break and retest and perfect break and retest BR perfect break and retest maxaa kaloo ka dhacay waa trend line respect TR trend line respect saddexdaa isku mar haddii ku caama ku maxaa dhacay waa strong waa saddexda shay oo meesha ka rabtay saddexdii waxay ka dhaceen hal meel maxaa hal meel kaaga tusayaa waxaan ku tusayaa siday strong u tahay saddexda shay siday u shaqeynayaan wayga u shaqeynayaan oo sula shaqeynayaan hagaag aan soo qofur marka 1 to 3 meesha aan ka dhigo ay kaadi 1 to 1 1 to 2 mostly 1 to 3 1 to 4 1 to 5 waxa adiga ka dhigo laakiin waxaan kula talinayaa mo greedy ma fiicna 1 to 3 ama 1 to 2 1 to 2 waa traders waaweyn oo adduunka waxaa weeye waxyaaba ay raadiyaan waa the best inaa 1 to 2 suuq ka heshid maanta suuq aan dhaqaaq adag ka filanayn inaa 1 to 2 ka heshid waa wax aad u weyn wey 1 to 2 inaa ka heshid inaa 1 to 3 ka heshid kasi fiican marka percentage baa ku xisaabtana meeshan waxa waaye number of pibs ma tirsanaan percentagekaas waxaa ka qiimo badan yahay number of pibs kala tirinayo okay aan 1 to 3 ga waa aragtaa trade soo galay waa sell stop most maxaa ku yiri sell stop isticmaala ka marka wax ma sell stop soo galay wixii oo dhan halkan hadda maxaa ka dhacay fiiri waxaan ku dhahay suuq ka raadi maxay ahayd multiple quick rejections MWR multiple week rejections waxaan ku yiri meeqa week baa ka aragtaa kow labo saddex kuwaan dhan waa kan la yeero soo cadeynay inuu momentumkii dhamaaday halka u socday okay 1 3gaas bal inta loo gaaro arag marka يو سوق سيماريا 1 to 8 and 1 to 3 كلية معانا 1 to 9 1 to 10 1 to 10 قفك حتى اكتاب وكفى ايه لها
1 to 10 let us see في 1 to 10 قف إلى تحتها maanta trade aad ka qabatid percentage 1 to 10 ah it's not easy really wax waa balki ama aha okay let us see oh my goodness 1 to 10 حتى waa dhaafi lahaa laakiin waxa waa dhaafi lahaa uu socon lahaa waxba kaama gelin adiga percentage ku xisaabtan percentage waa inaad tahay qof target suuq kale 1 to 3 maanta lotkaaga haddii aad saartid oo aad bibka kulatarka isticmaashid oo lotka ugu macquul saartid waxa waaye lemon way qof heli kara ma jiro here we go ayadoo buy aan raadino meelaha ku wax perfect oo macquul inaan ku tusaan rabaa ayadoo buy ah okay mar halka inaan sharaxaad badan ku qoro this is my bear AJ waxaan waa meelaha aan tirada ka qaatay oo maalin hore last week ba umalnaa asbay xorneyd meeshaan okay halkan waxaan arkaa waxay macaydan kulansan yihiin Atlantic respect ko loo Atlantic respect markan Allah midda kale waxaan aragtaa in halkan lagu qabto suuqa correction leh ama waxa dhahdaa sideways move market as a continuation si ay continue u samayso waa push meeshaan waa pullback continuation marka saa u sugtid waa la berigeliyay halkan levelkan meesha suuqa dul waa aragtaa waxaas waa 5 minutes marka haddii isku daro 1 hour way gaaraysaa meeshaan ama way ku dhawaanaysaa ama 1 hour way noqonaysaa marka hadda halkan waxa waaye waa la berigeliyay retest waa lagu sameeyey waa perfect break and retest waa aragtaa intaas dhan suuqa ka maqnaa meeshaan waa lagu soo halkan yimid waa la dhaaqay sidoo kale waxaan aragtaa halkan inay ka dhacday maxay waxaan ku sheegayo ahaa higher low si qurux badan hagaag saaxiibayaal ma rabo inaan kusii dheeraado halkan oo kale buy markaa meelahan dhigtid buygaaga dhib fiican baa ka qabanaysaa dhib fiican even 1 to 2 wax ku dhawa ka qabatay 1 to 5 meelahaas maxaan intaa kula wadaagay waxa waaye si aad uga taxadirtid in ay kugu dhacdo mar dambe arrinka ah ku degdegida suuqa inaad ku degdegtid meel khaldan ka qaadatid waxaa laga yaabaa inaad markasta aragtaan setup-yo aadan la soo wadaagayno setup-yadaas waxa waaye waxaa la rabaa inaad qofku aqoon ka korso bal maxay saa u sameynayaan waa inaad suuqa kula noqotid waxaan maxay u sameynayaan wax shaqayna mihiin horta qof kasta oo wax kula wadaaga yani it works waxa laga yaabaa asaga u shaqaysay marka si aad adigu ogaatid xaqiiqada jirta iyo inay waxaan shaqaynayaan backtest ku samee la tag screenshot ka qaado sawiro meel ku qoro fiiri bal waxa inay shaqaynayaan in kale waxaan kula wadaagay saddexdaan as a trend trader saddexdaana ku muhiim ah saddexdaan waa inaad raasatid okay intaasaan rabaa inaan soo koobo haddii halkaan soo gaadhay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka